بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبابي في الله ودرسيني أفراد دروستيني عن رمضان كجو الرميني الدرس الثاني أحكام الصوم درسيان kaga waramayaa soomka axkaamtiisa sin su'aal maa huwa al-aslu fi wujuubi الsawmi soomka wujuubkiisa asalkiisa waa maxay yacni soomka wujuubkiisa xageen ka qaadanayna maxaa asal u ah jiim jawaab al-aslu fi wujuubi الsawmi qowluhu tacaalaa soomka wujuubkiisa asalkiisa ilaahay qowlkiisa ayaa daliil u ah ilaahay uu yidhi yaa ayuha hooyay aladiina kuwii aamanuu alla io nebigiisa rumeeyayow kutiba waxaa la idinku farad yeelay calaykum dushiinna assiyaamu son ayaa la idinku waajibiyey kamaa sidii kutiba loogu waajib yeelay cala aladiina kuwii dushooda min qablikum adinka idinka horreeyey lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad dhowrsataan ood cabsataan wa qowluhu ilaahay qowlkiisa faman ruuxii shahida xaadira minkum xaal uu idinka mid yahay adinka ashahra bisha ramadaan falyasumhu ha soomo mar haddii shuruudina uu oofsaday soonna uu gaaray shuruudda waa maxay islaam inuu yahay caaqil inuu yahay baaliq inuu yahay qaadir inuu yahay soomka awooda cadamulmaanici intaas hadduu oofsado waxaa weeye soomkiina ilaahay u gaarsiiyo ku simo waajib ayuu ku noqonayaa shuruudu wujuubi sawmi soomka wujuubkiisa shuruudiisa siin su'aal udkur sheeg shuruuda wujuubi sawmi soomka wujuubkiisa shuruudiisa sheeg jim jawaab shuruudu wujuubi sawmi soomka wujuubkiisa shuruudiisa 5 weeye wahiya shanta midka koobaad al-islaamu islaamnimo ayaa loo sharday qofka uu ku waajibayo soomka horta waa inuu islaam yahay ee falaa yasixu sawmu soomka ma ansaxayo min kaafirin gaal xaggiisa xataa yashhada ilaa uu ka qirayo an laa ilaaha alla kale inuusan jirin ila allaahu allaha keliya macbuudka ah ee xaqa lagu caabudo ma ogeen wa an yashhada waa inuu qiro anna muxamedan nebi moxamedna rasuulullaahi ilaahay axadku soo dirsaday inuu yahayna ilaa uu ka qirayo waxaa weeye soonka ma ansaxayo oo marka waa islaamnimadaasaa shardi ah oo laga rabaa qofka yacnii soomka uu ku waajibayo shardiga labaad alcaqlu caqli weyn oo falaa yasixu kama ansaxaya asoomu soom min majnuunin mid waalan xaggiisa waxaana u daliil ah oon ka qaadanaynaa liqowlihi sala allahu calayhi wasalama rasuulkeenna qowlkiisa rufica alqalamu qalinkii waa laga kor yeelay can 3 xaggooda oo waxba lagama qorayaa laga wadaa can isabiyi kii yaraa xaggiisa qalimka waa laga kor yeelay xataa yabluqa ilaa uu ka qaangaarayo wa can innaa'imi kii hurday xaggiisana qalimka waa laga kor yeelay xataa yastayqida ilaa uu ka soo baraarugo uu ka soo kaco ilaa uu ka soo tooso wa can ilmajnuuni kii waalnaa xaggiisana qalimka waa laga kor yeelay xataa yafiiqa ilaa uu ka miirsanayo oo rawaahu abu daawuud shardiga saddexaad oo yacni ka mid ah shuruudu wujuubka albuluuqu qaangaaru wafalaa yajibu sawmu soom kuma waajibayo cala asagiiri mid yar dushiisa kuma waajibayo xataa yabluqa ilaa uu ka qaangaaro laakine idaa kaana asabiyu midka yar haddii uu ahaado mumayizan mid wax kala soocayo oo wasaama uu soomo saxa sawmuhu soomkiisa uu ka ansaxayaa shardiga afaraad alqudratu cala asawmi
qofka uu ku waajibayo soomka waa inuu awoodo soomka. falaa yajibu sawmu soom kuma waajibayo man laa yaqdiru calayhi qof aan soomka awoodin kuma waajibayo. ka mariidin mid xanuunsan oo kale oo laa yurjaa bur'uhu caafimaadkiisa aan la rajaynaynin. wuu duqoobay oo sariir buu iskugu tegayoo waa qof cantatabay oo sariir ku urursaday, ama xanuunsan oo xanuunkiisana dhakhaatiirta ay isku raaceen inuusan ka caafimaadaynin, kaas soom kuma waajibayo. shardiga shanaad cadamulmaanici, wax soomkii mancinaya oo reebaya waa in la waayaa. falaa yajibu sawmu soom kuma waajibayo cala alxaa'idi tii xaydka qabtay dusheeda kuma waajibayo, iyo wannifaasi iyo tii dhiig dhalmeedka qabtay umusha ahayd kuma waajibayo. arkaanu sawmi soomka arkaantiisa. udkur sheeg arkaana sawmi soomka arkaantiisa sheeg. jawaabta waxaa weeye arkaanu sawmi soomka arkaantiisa ihnaani laba weye, wahumaa labadoodana anniyatu. midka koowaad waa anniya, niyo, waana lixadiidi caaishata radia allaahu canha can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yidhi man ruuxii lam yubayit الصiyaama qofkii aanan soonkiisa bariisinin, qofkii aanan niyadiisa macnaha niyada aan bariisinin qabla طuluuci اlfajri fajarka dhalashadiisa ka hor falaa siyaama lahu soon uma sugnaanin. rawaahu طabaraaniy. rukniga labaad waxaa weeye al-imsaaku afhaysasho wey can ilmuftiraati waxyaabaha soonka buriya laga afhaysto, waana liqowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa weye huma intaas kadib atimuu taam yeela asiyaama soonka ila alleyli ilaa habeenkii laga gaarayo. hada wabillahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.